Dadka ku jira xiriirada wakhtiga dheer qaata waxay ku tagi doonaan maalin ay isweydiiyaan talow tani ma tahay qoftii aan rabay nolosha inta ka dhiman inaan la noolaado oo aan la qaato. War gabadhan ma tahay mataanteedii? Saynisyahanadu waxay ku howlan yihiin sidii ay ugu gungaari lahaayeen sida dadku isugu habboon ay yihiin tilmaamaha labada qof ee u horseedi kara xiriirka farxad leh misna xiriirkaasuu noqdo mid waara. Cilmi-baarayaashu arrintan ku saabsan kuwooda ugu muhiimsan uguna xiisaha badan waxa ay sheegeen inay jiraan qodobo. Haddaba waxaan soo qaadan doonaa asxaabta ku xiran aayaha nolosha TV qodobo inta badan lamaanayaashu oo aan ku waanin doono inaysan sii deyn gabadha leh qodobadan. 1. Waa ay ka aqli badan tahay. Kolka aad baadigoob ugu jirto gabar nolosha kula wadaagta hubi inay tahay tan ugu aqliga badan. Waxaa wanaagsan in gabadhu ay adiga ka aqli badnaato si aad waxyaabo badan uga faa'iido. Cilmiguna sidaa ayuu qabaa oo lamaanayaashu waxay inta badan yihiin kuwa guulaysa. Lawrence Welle oo ah professor howlgab ah kana tirsan jaamacadda Aberdeen ayaa waxa uu u muuqdaa oo uu baaray farqiga u dhexeeya gabadha aqliga leh iyo tan aan lahayn, wuxuuna helay in gabadha aqliga badan ay tahay tan ilaalin karta asasaaqa ku yimaada nolosha marka ay gaboobaan lamaanuhu. Taladiisuna waxay leedahay waxa uu sheegayaa haddii qofka uu wakhti dheer noolaado oo uu guursado gabar aqli badan ma jirto buu yidhi gaashaan aqliga ka fiican. Warka oo kooban waxa weeye in gabar aqli badan ay ka fikir wanaagsan tahay gabadha kale. 2. Gabar leh dabeecad ama inay ahaato qof dabeecad wanaagsan misna daacad ah. Mararka qaarkood qof walba qalad waa uu sameeyaa, go'aan qaldanna waa uu qaataa. Muhiimaddu in aad haysato qofka jidka saxda ah dib kugu soo celiya. Kolka aad gaftana inta badan adiga ku darsa oo wax uun kuu sheega. Daraasaddan ayaa sidoo kale tilmaamaysa in daacadnimadu ay tahay tan inta badan raggu u muhiimsan in gabadhu ay ahaato gabar daacad ah oo ay niyad fiican tahay. Qofta marka ay tahay qof niyad wanaagsan waxa ay ka mid tahay dadka mar walba arka in koobka nuskiisa buuxa mararka qaarkood ama barkooda. Ma ku eedaynayaan inaad adigu wanaagsan tahay in kale. Haddaba waxa ay tahay in aad hesho gabar ku riyoon jirtay dadka niyadda xun waa sun. Waxa ayna u daran yihiin caafimaadkeena sababtoo ah niyad xumadu waxay nagu diraysaa inaan waddada guusha lamaanuhu aysan gaarin. Tani waxaa lagu caddeeyaa daraasaad niyad xumida la xiriirta. Qodobka kale ayaa ah waxa ay taqaanaa tanaasul. Gabadha leh tanaasulku waa mid lagu ducaysto. Noloshu mar walba janno ma aha, mar walbana adiga iyo lamaanahaagu waad isqabanaysaan. Waa wax caadi ah marnaba lagama fursan karo, balse xiriirku waxa uu sii jiri karaa keliya marka labada qofood ay yihiin kuwa diyaarsan. Daraasaddan oo lagu sameeyey in ku dhow 170 lamaane isqaba ayaa waxaa la sheegay in ay socotay 12 saacadood. Ayaa waxa ay natiijo ahaan noqotay marka xiriirku wanaagsan in labada qofood ay guulaystaan. Qodobka ugu dambeeya ayaa ah ee 5 waa ay ka qosashaa majaaladaada iyo weliba waxyaabaha majaalada la xiriira. Hubaal waxaan u baahannahay dad noo dhow oo kaa qosliya. Kantarka iyo daraasadda lagu sameeyey 2006 ayaa waxay tilmaamaysaa in haysashada lamaane kuu qaba in aad tahay shactiroole ama in inta badan adigu uu kaa qoslisiiyo. Waxaase ay taasi la xiriirtaa qalbi furnaanta. Hase yeeshee gabar baxsan oo asaageeda ka dhex muuqata oo hadalkeeda dadka kale maqashiin karta waxay noloshu ka dhigaysaa tu sahlan. Daraasaddan waxay sheegaysaa in dadka qalbiga furan macluumaadkoodu shaqsi wadaagga ah loo arko inay yihiin kuwo soo jiidasho leh. Qorayaasha daraasaddan waxay leeyihiin tilmaamtan waxay qofka u horseedaa inuu guulaysto. Haddaba wiilow qodobadaasaan soo sheegnay gabadhii leh waxaad inta badan ku dadaashaa in aad guursato oo mustaqbal aad la wadaagto. Saaxiibada ku xiran aayaha nolosha TV-na waxaan idin leenahay haddii aad ka hesheen qodobkan waxaan rajaynayaa inaad fikirkiina lala wadaagi doontaan. sidoo kaleetana
laagta sheerta iyo commentigu waa dhankiina.